qaar ka mid ah dadweynaha ku nool deegaanada Hadwanaag ee deegaan Kalabeed iyo waliba deegaanka Awnuur oo ka tirsan degmada Baki isla markaasina hoos yimaada gobolka Awdal ayaa gabi ahaanba waxay dadkaasi cabasho ballaaran ka muujiyeen in aanay lahayn baahiyaha aasaasiga ah ee deegaanadaasi iyadoo ay xusid mudan tahay in umushi afraad waxay ugu geeriyootay Rabbi naxariistii jannaha ka waraabiye dhiigbax kadib halkaasi oo aan lahayn goobo caafimaad amaba xarumaha hooyada iyo dhallaanka waa sida ay dadka halkaas sheegeen dadweynaha deegaanadaasi kala duwan ee aynu hore u soo xusnay oo iyagu arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa daladoodii kamid ahaa iyaga waxa kamid ah goob caafimaad iyo ceelbiyood dhimasho ku timaada hooyooyin rabadaantii gudaheegii maxaan ku dhaday toddobaadkii horeeyay hooyooyin waxa jiray dhintay oo maxaan ku dhaday u dhintay madheerta ku dhagtay oo u dhintay nafaqo darro iyo bilaadhiig dhiig baxay oo madheertuna ku dhagtaa jira marka waxaan u baahanahay in noo sameeyo goob caafimaad noo sameeyo oo si ay odayaashu sheegeen ay ku cadeeyeen in ay dadku iyo daayirka meel ka wada cabaan dumar badan na ay u dhinteen diin la'aan wanaag ka mida waxaan halkan ka cadaynayaa in beeshu ay u baahan tahay kow dhakhtar gobol dhacay iyo waa baryaba haweenku ay umusha ugu dhintaan dhakhtar la'aan talabaad waxaan ka codsanayaa hay'adaha caalamiga ah iyo madaxweyne ku-xigeenka in si degdeg ah beelaha hareeraha iyaga waa laga wada dhisay in annaguna si degdeg ah wax lanoogu qabto annagoo ah dadka codbixinta dawladda aad iyo aad ugu qiimo badan. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan baaqiyo cod dheer u soo jeedinayaa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. Waxaan uu shirkayagan aan halkan maanta kaga hadlaynaa daaran yahay ilmaha yareed aragtaan hooyadii waxay u dhimatay dhiig la'aan ayay u dhimatay MCH la'aan daryeel caafimaad la'aan ayuu ilmaha yar hooyadii ay u dhimatay waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ka codsanaynaa cod dheer ku gaarsiinaynaa dadkani waa dadkii labadii goor ee doorasho ee aad gashay madaxweyne ku-xigeen Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici gabadhan dhashay ilmaha yar waa dadkii ku codeeyay labadii goor ee doorashada soo gashay dadka dhan ee deegaanka degan Hadwanaag Kalabeedka dadka dhan ee deegaankaas oo dhan degan waa bilaa MCH xaalad caafimaad ma haystaan umuluhu waxay u dhintaan dhiig la'aan ayay u dhintaan waa umushii afraad ee taayir hooyadeeda ay u dambeysay ee ku dhimata halka komaan gali gaarana kolkaan ilmaha yar aragna bala nafaqada heerkii u dambeeyay jooga waxa weeyaan hooyada caafimaad darro heerkii u dambeysay jooga nafaqa la'aan heerkii u dambeysay joogta waxa weeyaan madaxweynaha xaq baan ku leenahay xaqiisaan ka rabnaa madaxweyne ku-xigeenka xaqiyaan ku lahayn ma ka rabnaa uqbax u dhimatay amba dhiig bax u dhimatay lama soo koobi karayo waxaan ku soo koobi karna maaha ayaga waxa la yiraahdaa Yuusuf Maxamed Caataye waxaan ka mid nahay gobolka Awdal gaar ahaan degmada Baki tuulada Hadwanaag madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici geedkaas uu nagu yimiday koor cidina dhaxmareen cidinaga celinay oonu gaar lahayn maantana looma tagayo gaar buu leeyahay wixii uu naga doonayo naga helay annaguna maanta waxaan ka doonaynaa caafimaad sanadkan 2020 kan ku jiro waa afar umula yaa ku dhintay dhiigbax iyo dhiig la'aan waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba muuqaal maqalka caalamiga Kalsan TV wararka deegaanada gobolkaasi Awdal ee magaalada Boorama